bishii Oktoobar 1893 magaalada Marka waxaa soo degay sargaal Taliyaan ah oo la oran jiray Vincenzo Filonordi oo ahaa maamulaha shirkadda Societo Filonordi ujeedka imaanshihiisuna wuxuu ahaa inuu gacan ku dhigo maamulka magaalada Markacadey laakiin socdaalkiisu wuxuu isu bedelay mid dhiig huwan kadib markii mid ka mid ah kabtanadii maraakiibtiisa oo lagu magacaabi jiray Lieutenant Mauriza CF qudha lagu dhaafiyay dhacdadani waxay ahayd digniintii ugu horeysay ee ka timid dadka deegaanka taas oo ka dhan ahayd faragelinta Talyaaniga ee koonfurta Soomaaliya halgan ballaaran oo xaruntiisu ahayd Marka ayaa qarxay waxaana halgankaasi hormuud u ahaa beesha Biyamaal halgankooduna waxa uu gaarsiisnaa ilaa waqooyiga Muqdisho waana tabinteena maanta waxay ku saabsan tahay haddaad ugu cusub tahay page-ka subscribe sir 22 November 1876 ciidamo aad u fara badnaa oo kale oo ka tirsanaa gumaysigii Talyaaniga ayaa ka soo tagay xeebta magaalada Markacadey dagaalyahano ka tirsan beesha Biyamaal ay horkacayaan labadii hogaamiye xilligaasi ugu caansanaa oo kala ahaa Allaha u naxariistay Macallin Kabtoli iyo Sheekh Cabdi Abibakar Gaafle ayaa difaac adag waxay ka sameysteen xeebaha magaalada Marka si ay uga hortagaan gumaysigii Talyaaniga oo doonayay inay cagta soo dhigaan dhulka ay ka taliyaan saldanada beesha Biyamaal markii magaalada Marka loo aqoonsaday xarun kacdoon Talyaanigu waxay ka cagajiideen inay halkaas u diraan wakiilo toosa xilligaasi maamulka magaalada waxaa loo igmaday Giacomo Travis oo fadhi ka dhigtay magaalada Barawe bishii November 1895 magaalada Marka waxaa lagu qaaday weerar ciidan kadib markii ay Biyamaal laayeen ciidamo uu qortay maamulka Talyaaniga colaadu waxay sii fiday markii la dilay ninkii lagu magacaabi jiray Travis dilkaas oo meesha ka saaray rajadii Talyaaniga ay ahayd in koonfurta Soomaaliya laga dhigo dhul ay beeraleyda Talyaanigu degaan difaaca Biyamaal iyo go'doomintii ay ku hayeen Marka ayaa socotay sanado badan colaada ayaa cirka isku sii shareertay markii bishii November 1896 isagoo socdaal dalxiis ku jira Antonio Cecchi iyo saraakiil uu wata lagu weeraray Lafoole waxay 6 kiiloomitir oo kaliya u jirtaa Afgooye dhinaca koonfur ee Muqdisho weerarkaasi waxaa lagu dilay ninkaasi 14 kale oo uu ku jiro ninkan soo magacaabay ee Cecchi Talyaanigu argos ahaan waxay u gubeen dhammaan tuulooyinkii Biyamaal 22 November 1902 waxa isugu yimid deegaanka Hareerley waxay ahayd xarunta ugu weyneed ee taliska ciidamada Biyamaal hogaamiyaashii beesha Biyamaal oo hogaaminayaan Macallin Mursal Cabdi Yuusuf iyo Sheekh Abikar Gaafle waxayna isla qaateen dagaal looga hortago gumaysiga dhulkooda soo galay iyo in halgalka Biyamaalka laga dhigo mid ku dhisan mabaadi'da diinteena suuban ee Islaamka waxayna ka tilaabiyeen halgan u abaabulan qaab qabiil oo kaliya isla maalintaasi waxa ciidamo loo kala diray xeebaha magaalada Marka iyo deegaanka Lafoole si loo hor istaago ciidamada gumaysiga waxaana halkaas si buuxda uga bilowday dagaalkii muddada dheer socday ee loo yaqaan Biyamaal Revolt labada hogaamiye waxay si bilaaran ugu baaqeen iska caabin ka dhana gaalada iyo cid kasta oo dhulka Soomaaliyeed ku soo diisha bishii February 1907 Lieutenant Besenti oo ahaa sargaal Talyaani ah oo cusub ayaa isku dayay inuu joojiyo shir maxalli ah oo ka socday Moyale wuxuuna xiray hogaamiyaashii deegaanka Biyamaal laakiin dadkoodii ayaa u arguday waxayna burburiyeen saldhigyadii Talyaaniga ee Dhanaane jawaabtii Talyaanigu waxay ahayd inay gubeen dhammaan tuulooyinkii ku fidsanaa 100 kiiloomitir waxayna laayeen dad xoolo badan ayayna la wareegeen fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir waxaan ahay Muxyidiin Cabdi Nabadino